kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Celhuur online waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka toddobaadka ee taariikhda adduunka. barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa taariikhdii guracnayd ee gumeystihii Soomaaliya. qarnigii 19aad Soomaaliya waxay noqotay masraxa gumeysiga ee u dhaxeeya dalalka reer Yurub sida Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga, kaasi oo horseed u noqday kala qaybintii Soomaaliya kadib kala qaybintii Afrika ee shirkii Berlin sanadii 1984. ujeedada gumeystuhu uu qabsaday dalka Soomaaliya waxa ay ahayd inuu gaaro ujeedooyinkan soo socda: 1. ujeedada dhaqaale, 2. ujeedada siyaasadeed, 3. ujeedada diineed. waxa uu taagnaa inuu ka faa'iideysto hantida dhulka marka loo eego baaxadiisa, balse markii ay diideen dadkii dhulka lahaa, gumeystuhu waxa uu bilaabay inuu siiyo badeecooyin iyo dhaqaalo si uu u qabsado dhulka. ujeedada siyaasadeed waxa ay ahayd xakamaynta dadka dhulka leh iyo in la yareeyo dhaqaalaha iyaga oo qoranaya dadka nugul oo ay geeyaan goobaha dagaalka si loo horgeeyo dadka kale aqoon-yahanada Mareykanka. siyaasadda gumeystuhu waxa ay ahayd inuu bedelo hanaanka jira isla markaana uu dib u fiiriyo xiriirka awoodeed ee ka dhaxeeya dalalka si loo dhiso boqortooyo qaaradeed ama xiriir caalami ah. ujeedada diineed waxa ay ahayd burburinta diinta, dhaqanka iyo fikradaha dadka dhulka leh dhammaan ama qayb ka mid ah iyada oo la tababaraynayo oo la kala saarayo. halkaasi oo gumeystuhu istaagay burburinta qaab dhismeedka bulshada ee u hoggaamsan mabaadi'da iyo qiyamka. waxa uu ka shaqeeyay ciribtirka dhaqaalaha dadyowga. waxa uu afka gumeystuhu ka dhigay afkooda rasmiga ah, taasi oo ay u sii dheer tahay awoodsiinta ergooyinka kaniisadaha iyo faafinta diinta Kirishtaanka. fikirka aadamigu wuu isbedelaa iyada oo loo fiirinayo waqtigiisa iyo goobtiisa. sidaa darteed dunidu waxay soo martay waqti awood wax lagu muquuniyo kuwaas oo ka fogaa caqliga suuban. kuwa ku dhaqma aragtida waxa ay isku arkayeen in ay yihiin wadaniyiin iyo halyeeyo awood badan leh oo gaaray ujeeddo sare. waxaan aragnaa in fikirkaasi ay ku xoogaysteen dalalka reer Yurub dabayaaqadii qarnigii 19aad, taas oo horseeday in dal kasta ee reer Yurub xoog leh uu damco inuu ballaariyo dalkiisa oo uu ku darsado dhulal kale, gaar ahaan kuwa taagta daran ee ka mid ah dalalkan. waxa ay u dhaqaaqeen inay xaqiijiyaan ujeedooyinkooda oo ay ka mid yihiin ujeedada dhaqaale, ujeedada siyaasadeed iyo ujeedada diineed. ujeedada dhaqaale waxa ay ahayd inuu qaato kheyraadka dalka oo uu gumeystuhu ka faa'iideysto. ujeedadani way caddeed maadaama dalalka gumeystayaasha ee reer Yurub ay noqdeen kuwa ugu hodansan dunida. gumeysigii Ingiriiska oo ahaa dowladda ugu hodansan reer Yurub waxa uu ku gaaray ka faa'iideysiga kheyraadka dalalka uu gumeysto, waxaana ka mid ahaa Soomaaliya oo ah meel istiraatiiji u ah ganacsiga adduunka. halkaasi oo uu ka xukumayay xeebta waqooyi ee Soomaaliya. sidoo kale Talyaaniga oo soo galay loolanka gumeysiga dhawaan isaga oo la wareegay xeebaha koonfureed. marka lagu daro Faransiiska oo ka faa'iideysanayay kheyraadka xeebaha Soomaaliyeed. sidaa darteed kacaankii darwiishaha ee ka dhashay Yurub iyo horumarkii dhaqaalaha ee ka dambeeyay waxa uu keenay in kheyraadka gobolladii la gumeysanayay alaabtooda ciiriinka loogu dhoofiyo dalalkaasi ayna u samaysteen waddo ay ugu suuq geeyaan wax soo saarkooda. dhanka kale gumeystuhu waxa uu lahaa ujeeddo siyaasadeed. ujeedooyinka dalalka gumeystayaasha waxaa ka mid ahaa isu muujinta sida ayaga oo ah dalal xoog leh oo ka soo horjeeda awoodaha kale, gaar ahaan dalalka gumeystayaasha ah tartan xoog leh ayaa u dhaxeeyay. sidaa darteed dal waliba waxa uu isku dayayay in uu ballaariyo dhulkiisa uu gumeysto si uu u gaaro ujeedooyinkiisa iyo in aysan taagdarrida ka arkin dalalka kale. dalalka gumeysiga ugu firfircoonaa waxaa ka mid ahaa Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga. daynta ugu fiican waa tartanka ay ugu jireen gacan ku haynta gobollada leh muhiimadda istiraatiijiyadeed, xeebaha, marinada badda sida marinka Abu Mandab iyo meelaha kale oo leh muhiimadda dhaqaale sida Soomaaliya oo leh dhul beereed ballaaran, xoolaha iyo macdano. Talyaanigu wax badan ayuu ka faa'iideystay beeraha Soomaaliya isaga oo lahaa shirkadda ugu weyn ee mooska Soomaaliya u dhoofisa dunida. dhanka kale ujeedooyinka uu rabay inuu fushado waxaa ka mid ahaa ujeeddo diineed. sahmiyayaasha reer Yurub iyo gumeystayaasha badan waxa ay raadinayeen meelo ay ku faafiyaan diinta Kirishtaanka. meelaha ay tageen oo ay gacanta ku hayeen ujeedada ay ka lahaayeen waxa ay ahayd in ay dadka ku dhex faafiyaan diinta Kirishtaanka oo ay bedelaan diinta ay rumaysan yihiin ama ay kala dagaalamaan caadooyinkooda iyo dhaqamadooda. sidaa darteedna gumeysto walba waxa uu ku soo rogay caadooyinkiisa iyo dhaqamadiisa dadyowgii uu gumeysanayay. guud ahaan daawadayaal intaas waxaa ku eg barnaamijka toddobaadka ee taariikhda adduunka. intaan barnaamij la'ayna ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.